assalaamu calaykum wakhti wanaagsan muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa taariikhda iyo cajaa'ibta u gaarka ah iyo xaqiiqooyinka ku saabsan kaana qarsoon dalka bakistan oo ah dalkii ugu horreeyay islaami ah ee samaysta hubka nukliyeerka. jamhuuriyadda islaamiga bakistan waa waddan ku yaala koonfurta eshiya, waana mid ka mid ah dalalka caalamka markii loo eego saameynta leh. waa dalxiis ahaan loo tago sanad kastana dadyo aad u fara badan ee tagaan. waa waddanka shanaad ee ugu dadka badan caalamka oo dhan. waddankaasi bakistanna waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 243 milyan, waana mid ka mid ah waddamada ugu muslimiinta badan caalamka oo idil. bakistan waa waddanka 33aad ee ugu weyn caalamka baaxad ahaan markii loo eego, waana waddanka labaad ee ugu weyn baaxad ahaan koonfurta eshiya. 881,913 kilomitir square ayuu dhan yahay baaxadda dalkaasi. waddankan wuxuu xuduudo kala duwan la leeyahay waddamo kala duwan oo caalamka ku yaala. dhanka bari wuxuu xuduud kala leeyahay waddanka hindiya, dhanka galbeed wuxuu xuduud kala leeyahay waddanka lagu magacaabo afghanistan, dhanka koonfur galbeedna wuxuu xuduud kala leeyahay waddanka iiraan, halka dhanka waqooyi barina wuxuu xuduud kala leeyahay waddanka shiinaha. caasimadda rasmiga ah ee dalkan waa islaamabad. magaalada ugu weyn dalkanna waxaa lagu magacaabaa karaaji. waddankan waxaa lagu hadlaa 2 luqadood. luqadda rasmiga ahse waa luqadda urduuga, halka luqadda labaad ee looga hadla dalkan ay tahay luqadda ingilishka. dalkan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan oo haysto diimo kala duwan. qowmiyadda ugu badan ee dalkan ku nool waxaa lagu magacaabaa bunjaabi, 45% ayay ka yihiin. bashto 8% ayay ka yihiin. sindi 12% ayay ka yihiin. zarayki 10% ayay ka yihiin. balooji 3% ayay ka yihiin. hindiko 2% ayay ka yihiin. bothwari 1% ayay ka yihiin. barahol 1% ayay ka yihiin, halka qowmiyadaha kale ee ku nool dalkan aysan badnayn. dadka ku nool dalkan 96.5% waxay haystaan diinta islaamka, halka 2.1 ay haystaan diinta hinduismka, 1.3 waxay haystaan diinta kiristaanka, 1.1 waxay haystaan diimaha kale. waddankan wuxuu leeyahay sharci dejiyaal iyo golo aqalka sare iyo hooseba. lacagta rasmiga ah ee laga isticmaalo dalkan waa bakistan rubi, oo ah lacagta rasmiga ah ee dalkani ka diiwaan gashan lagana isticmaalo. dalka bakistan wuxuu ka mid yahay dalalka inta ugu badan loo dalxiis tago, waxaana dalkaasi dalxiisaan u taga dadyo aad u fara badan oo daafaha dunida ka yimaada. caasimadii hore ee dalkan waxay ahayd karaaji oo hadda ah magaalada ugu weyn dalkaasi, laakiin 14 Agoosto 1967 ayaa laga bedelay, waxaana loo bedelay caasimadda rasmiga ah ee dalkaasi haddana ah islaamabad, oo noqotay caasimadda rasmiga ah ee dalkaasi. sidoo kale dalkani waxuu ka mid yahay dalalka caalamka markii loo eego saameynta ku leh. bal markaan aan kula wadaago xaqiiqooyinka gaarka ah ee ku saabsan dalkani. dalka bakistan waa waddankii ugu horreeyey ee islaam ah ee hela samaystana hubka nukliyerka. sidoo kale dalka bakistan waa dalkii ugu horreeyey oo haweeney ra-iisul wasaare ee ka noqota, iyo guud ahaan dalalka muslimiinta ah. haweeneydaasina waxaa lagu magacaabi jiray benazir bhutto. dalkan wuxuu sidoo kale ka mid yahay dalalka ay ku yaalaan keymaha ugu weyn caalamka oo idil. waxaa sidoo kale dalkan uu leeyahay ambalaasyo kala duwan oo dalkani ka shaqeeya, weliba badankood waxay ku shaqeeyaan qaab lacag la-aan ah. ciidamada dalkaasi waxay kaga jiraan dhanka ciidamada markii loo eego kaalinta 10aad, halka waddankaasi uu ka mid yahay dalalka ciidamadoodu awoodda ugu badan ay leeyihiin, saameyntana leh. waddanka bakistan wuxuu ka mid yahay dalalka ku yaala caalamka ee haysta hubka nukliyerka. keliya 9 waddan ayaa haysta hubka nukliyerka, waana maraykanka, ruushka, ingiriiska, faransiiska, shiinaha, waqooyiga kuuriya, hindiya iyo israa'iil. dalka 9aadna
waana dalka keliya ee muslimka ah ee haysta hubka nukliyeerka ama hubka waxgumaada ee caalamka oo idil saameynta ku leh. Bakistan sidoo kale waxay leedahay mid ka mid ah baasaboorada ugu awoodda badan caalamka. waddankaasina baasaboorkiisa waxaa lagu booqan karaa waddamo kala duwan oo caalamka ah qaab on arrival ah weliba. dalka Bakistan sidoo kale wuxuu leeyahay dekadda ugu ballaaran caalamka markii loo eego. dekadda dalkaasi ku taalana waa mid ka mid ah dekadaha ugu ballaaran caalamka oo dunida ku yaala guud ahaantoodba. dalka Bakistanna waa dalka keliya ee hadda haysta hubka nukliyeerka ah, waana dalka ay ku faanaan wadamada muslimiinta ah ee daafaha adduunweynahan ku yaala. muuqaalkii maanta aan kaga hadlayay taariikhda dalkaasi Bakistan intaan ayaan kusoo koobayaa. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka heshay like saar, siina share garay si uu gaaro asxaab fara badan. tani muuqaalkan xiga maalinta berri waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.